kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo suugaanta oo aanu ku soo qaadan doono haddii allah awoodda leh raalli ka noqdo martina uu noogu yahay abwaan yuusuf cismaan cabdulle yuusuf shaacir barnaamijka fanka iyo suugaanta ama dhaqanka iyo suugaanta ee telefishinka caalamiga ee universal oo wada jir ahaan ay ku soo saaraan sagal mustafa xasan iyo anigoo khadar maxamed cakulle waxaan uga mahadcelinayaa toddobaadkan barnaamijka wakhtigiisa uuna siiyey abwaan yuusuf shaacir laakiin mawduucu ma aha mawduucyada filaysaan saan jeclahay waa mawduucan isleeyahay maaha dad badan iminka halkan uma fadhiyaan inuu yuusuf shaacir qaabilo waxa weeye ku saabsan yahay waa maxay jacaylku maxaa laga yidhi jacaylkase dadkii hore ama wakhtiyadii hore qaab sideeyaa loo waajihi jiray ama maxaa loo yaqaanay yaa ugu horreeyey ama dadkii xilliyadeedu ku soo shaacbaxayn dadku sheegan karaan oo lab iyo dhadigu ay isu sheegan karaan jacayl waa arrimahaasi iyo kuwo kale waxaan filayaa waa arrin guurtu u fadhiisan karto oo aad u culus abwaan yuusuf shaacir baa wakhti badan siiyey arrintan yuusuf ku soo dhawo barnaamijka waxaan jeclay marka hore adiga ku maadsan wakhtigaagaadna siisay bal hadda inaynu marka hore nidhaahno arrinta jacaylka horta bal hadda maxaad gogoldhig uga dhigaysaa marka hore si ay dadku uga qabsadaan adigu in badan baad isku hawshay waad dhex gashay qoraalaad ka samaysay waad muxuu ahay la fakurtay waad rogrogtay waxa laga yaabaa jacaylkii oo jacaylay marka inaad gacanta ku sida adigu laakiin bal dadka ama maqlay ama uu haleelay ama maxaad ku jawaabaya barnaamijka bismillah horta howlwadeennada maamul iyo shaqaalaba universal t v waan idinka mahad celinaya fursadda ay siiseen midna waa ka cudur daaranayaa mawduuc dhallinyaro weeye oo kolley waa suuragal dad badan inay u arkaan aniguna waxa uu kalifaya hadba duruufaha bulshada ayaa kalifaysa taasi waa taa oo de in badan nabadaanu ka hadalnay colaadaanu ka hadalnay waxyaaba kalenu ka hadalnay haddii mawduucan aan isku dayno mawduucan qoraallo badan baa laga sameeyey caalamka dad badan baa isku hawlay inay ka hadlaan laakiin waxaad moodaa weli inay qabyo tahay oo aan la isla meel dhigin bahalkaasi waxa uu yahay way soo gaari doonaa bal wuxuu yahay qaabkiisa sidii dadkii hore u cabiri jireen aan eegno jacaylka iyo kalgacalka dadkeennii hore say u dhigi jireen intaynaan eegin ragga war horta dumarka wuu ammaani jiray magaalada berbera maalintii nolosha loo joogay lagumood hilaacii mul yidhi oo muuqday 2 jeer lagumood mulaaxoy haldhaa maraya sheedaa lagumood magaalada bombay macawisi yiil lagumood makaawida hadlaa madaxdii reer suuq lagumood dhirtii maacaleesh murihii saaraa madowgiiyo casaanka isku jira sida masciideedka marahayga waa xurarcayn soo murtiri showwe maankaa wax laga fiiriyaaye saada lagumood buulay odagii cabdigahayr cabdi warsame allah yarxameen nin kale wuxuu leeyahay bullaxaar magaalada baqdaatan iyo boosaaso berbera iyo baargaal iyo adari baasheeda beerato iyo baallaha kan xamar badaha coonkooda doonida bilaad loo mariyo tan iyo buuhoodle bilcelle iyo bankii tuuyo iyo beledka nairobi intaasaan bilaad maray haween baafisna ahaaye bulal yar la moodiyey haween bilacdaw ron intaasoo magaalo waxay isugu keeneen khaasaan maray buu yiri ka sii badan in baan ka soo qaatay gabigiisii yiri baan ka sii badan waa kuwa ninkaasna nin kale ahaayo isaguna jida qorraxay ayuu ahaa nin kale wuxuu leeyahay meegaageenayo ku jira madaxa uudaale meegaan arkayn markii ay xodayo maaxaysay ma muraayadii baa qalbigayda ka maashaysay kana u darano uudaale waa eryadan hargeysa xodayana waa doollo ilaa 500-600 kilomitir baa u dhaxaysa halkaa markay maraysa meegaan arkayn buu ku leeyahay mise quruxeeda wax yeeshay ragii horta saasay u ammaani jireen dumarka laakiin markay fariinta gudbinayaan kalgacalka si sarbeeba oo duurxula oo sogordaha oo afgobaadsiya bay u dhigi jireen sidan iminka waan ku jeclahay iyo habeenkii hurdada ma seexda iyo hadallada noocaasa berigi hore lama adeegsan jirin hadal duurxula yaa la adeegsan jiray laba xaalad waa loo adeegsanayo dadku dhaqanka iyo luqaddu hodanka ah
dad garaadkoodu sarreeyu ahaa ta kale waxaa ceeb ahayd jacaylku sidiisaa in afka lagu ballaariyo heblo waan ku jeclahay ama hebelo waan ku jeclahay lagu dhawaaqo bal hadda ninkan geeluga ogaasoy markuu ayada miranayo abeerkiisa naaxiya haddii aaranku iswaayo isaguba ma kala aamise wuu isu ololahay ninkaas inta waan ku jeclahay muu odhan wuxuu tilmaamay geel intuu ay gala iswaayey oo isu ololaya waatii loolan jiray gacal kalaa maqnaa iyo geelba wuu isu ololahay laakiin wuxuu doonaya intu inay ku darsato inaguna inaynu saasoo kale nin kale wuxuu leeyahay xalay guuraan ahaa shalayna galab carrow gasiin caanood ma dhamin haddana gaajay ma qaban waxbay gubayaan ma garan inantuu isna su-aal ku beeraya nin kale wuxuu leeyahay inuu yahay nin aragaaga jecelkuuna iman waayey oo eed sokeeya ka baqay iibatiya qaylo arrin sidaa u kala laasataan adiga unbaa og waxaas waa fariimo loo gudbinaya inantii jawaabtan iyada laga sugayo nin kale wuxuu arkay nin muddo inan daba socdo weli arrinkii qabyo ka yahay si sarbeeb uu dhigaya guguu kaga jiray garabkuu kaga jiray ilaa guga ee waraabuhu sooma gaadho gorayada buu ku leeyahay inuu arrintii qaadiyana uu diidaya fariintaa sarbeebta ah ee dhinacaasa ayay dadkii hore u gudbin jireen aan u soo gudubna xagga dhallinyarada cayaaraha daaya dhaqanka dhinacna hadduu soo gelayaane inan baa cayaar ka soo booday inan halkaa raarta ka soo jeedo istusaya dabeetana horteedii buu suri isku laba rogo sidii uu ku kufayba horteedii waana intuu de iska dhaadhicinaya istusayay ninkii markiiba degdeg buu boodo cayaartii intuu koona ka galay buu ku yeedhay wuxuu maa bawdaan kaa jabay beri adin baan balaf ku leeyahay kollaba boodi kari maayo balaasoo butulaqsado isagaa sii sheegay inantii iyadoo inankii hoosta ka yar rabto oo laakiin doonaysa inay dhiiri geliso iyu jawaabta waxay tidhi geel baa tabaadiyaho faras baa tagooga laho iyo dhaway turuntaroodaan ee tafta ciida ka tuntumo intaa la-eg baa kufa ha isna casaynin bay tidhi waa markaa hoosta laska yar rabaa arrintiina la caddayn maayo iyadoo la isdiidayba haddee wuxuu hi naa kuxansada oo xogtaa helayo xagga hooyadaa mooye xadhig ma soo hataata tacab la-aan iyana waxay tihi kuxansada oo xogtaa helayo xagga aabbaha mooye hasha xidid markay xidhantay xadhig ama furtaata angalo rageedan waa marka la isdiidan yahay marka la isdoonayo bare dhinacyadu iska raalliya geel buu soo xareeyay waa nin doobahoo inantii buu doonayay cabbaar la soo sheekaysto inantu adeesha bul yar baa hablaa loo samayn jiray oo aqalka agtiisa ah sheekada buud baan ku arkay ku qoran tahay inantii buu soo dul joogsaday wuxuu yidhi miiday xaggee baan kuu soo maraa waxay tihi muusow muska ii soo jibaax wuxuu hi miiday bilay qodaxii muddaa waxay tihi muusow mabiil jeexdaan haya wuxuu hi miidow bilaa dhiigay dhul qabay waxay tihi muusow xareed bay dhaan haya wuxuu hi miiday bilaaqoyayoo qarqaray waxay tihi muusow mara weyn baan ku siin iyadu waa laysraba markana waa laysrabaa ama markanuu leeyahay qumanqaaya badan leeyahay quruxdaa ma dayn karayo qolqolkii kusoo hoyo iyana ay leedahay mar haddaad iqaayibtay oo qancisna xaalku kaa yahay aniguna qabuul idhi markaasna waa marka laysraba dadkii hore qaababkaasay jacaylka afka lama soo mareero ku jeclahay ha oo dadkii hore ma oran jirin waa ku jeclay sheekaa jirta odaydaa islaantiisu yeedha isagoo odayaa la fadhiyo aw jaamacoo dabeetana suu diidi markii odayaash ka tageen bu guriga ugu yimi wuxuu khadiija maanta suxun baad yeesha waayo bayta waxa uu ku yidhi de marka ragga la fadhiyo magacayga ha igu yeedhi ila wax loo qaadana is jecel lahaye nolosha iyo duruufaha lagu jiray saasay ahay oo duruufuhuna way qalafsanaayeen markaasna nimanka dhacday dee afka lagu ballaarin jiray haddii arrintii halkaa maraysa saa loo qarin jiro loola xishoon jiray maantana aynu dareena halku marayo marxaladda kala guurka yaa ku dhiiriday ama duruufiba ku kaliftay inuu sheegto baaritaankaaga ku ogaatay horta dee wax lama qori jirinoo taariikhda soomaalida hada jeer qofkii wax ugu horreeyey sida loo cabiri karaa daraasad bay u baahan tahay laakiin bulshada dhexdeeda waxaa ka caana soomaalida ninkii la odhan jiray cilmi ismaaciil liibaan waa cilmi boodhari ninkaasaa bulshada soomaalida dhexdeeda ku caana ba haddaba intaynan isaga taarikhdiisiiya sida loo helo